cabdikariin sheekh muuse qalbi dhagax oo ka soo kicitimay magaalada Nairobi ee caasimadda waddanka Kenya ayaa maanta lagu soo dhaweeyay magaalada Hargeysa ee caasimadda Soomaaliland waxaana gagada diyaaradaha ee magaalada Hargeysa kaga hortagay mas'uuliyiin ka tirsan xukuumadda Soomaaliland iyo xisbiga mucaaridka ee UCID waxaana ay sheegeen in ay ku soo dhaweynayaan cabdikariin magaalada Hargeysa oo horay ay ugu casuumeen waxaan idinku soo dhaweynaynaa salaan kaliya laaba anigoo ku hadlaya dhammaan magaca gobolka Maroodijeex waxaan idinku soo dhaweynaynaa dalkiinni hooyo ku soo dhawaada dalkiinni oo la idinka jecel yahay Soomaaliland waa dal nabad ah oo laga jecel yahay dhammaan dadka afka Soomaaliga ku hadla cidna halkan lagama nibca dadka Soomaalida oo dhan waanu jecel lahay Soomaaliland waa dal xor ah oo madax bannaan cid kasta oo runtii noo timaadana saasaan u soo dhaweynaa anoo ka socdo golaha wakiilada xildhibaano badan baan ku soconaa halkan waxaan noo sharafay inaan ku soo dhaweyno cabdikariim xaaji cabdikariim inaan ku soo dhaweyno oo awal qalbi dhagax la oran jiray laakiin imanka qalbi dahab baan u bixinay maanta laga bilaabo waa qalbi dahab waxaan leenahay ku soo dhawow waddankaagii hooyo waa magaaladaadii cidi kaama leh mar hadduu jeelkii ka soo baxay ilaahay ka soo furfuray waxaan leenahay ku soo dhawow dalkaagii iyo dadkaagiiba ku soo dhawow waxa weeye geesi Soomaaliyeed baa tahay waxa weeye taariikhda ku qori doonta hadduu alla idmo annagu xisbi ahaan horaan ugu ballan qaadnay inaan halkan ku soo casuuno hadduu alla idmo maantay rumowday xukuumad iyo shacab iyo axsaabba waynu midaysanahay soo dhaweyntiisa anigoo ku hadlaya magaca dhaqanka iyo magaca golaha guurtidaba waxaan ku soo dhaweynaynaa mujaahidka dalkiisii hooyo iyo dadkiisii intaba waanu ku soo dhaweynaa waa dal Soomaaliyeed Soomaali meel kastoo joogtaba sida barasaabku sheegay qalbiga iyagu wuu u furan yahay waa soo dhaweynaynaa kalgacayl baan ku soo dhaweynaynaa walaalnimaan ku soo dhaweynaynaa wanaag baan ku soo dhaweynaynaa dhinaca kale cabdikariin sheekh muuse qalbi dhagax ayaa uga mahad celiyay dadkii ku soo dhaweeyay magaalada Hargeysa waxaana uu sheegay in uu salaan uga sido mas'uuliyiinta jabhadda ONLF isla markaana madaxda ugu sarsaraysa jabhadda ONLF ay dhawaan iman doonaan magaalada Hargeysa ee caasimadda Soomaaliland walaalayaal daqiiqada kuma soo koobi karno inaan idin dhahno waad mahadsantihiin waxaanu isku leenahay abaal waqti dheer shaqayn doona hiil iyo hoo sidoo kale waxaan idinka sidaa salaan aad iyo aad u baaxad badan jabhadda wadaniga xoreynta Ogaadeniya gudoomiyaheeda admiraal maxamed cumar cismaan iyo xogayaha guud ee jabhadda cabdiraxmaan sheekh mahdi maadey oo ayaguna u diyaarsan maalmaha soo socda inay soo booqdaan Soomaaliland Hargeysa ay iman doonaan iyo waxay ku dari karaan oo kale sidoo kale wuxuu noqon doonaa kulli dhaqdhaqaaqoodaas mid aad ula socotaan waxaa u qorshaysan inay guud ahaan ay ummadda Soomaaliyeed oo walaalaha ah oo qadiyaddan aad u taageertay inay u mahad celiyaan wadaagaan wixii hiil iyo hoo iyo iskaashiya waxaynu nahay dad walaala ah oo dan walba ay ka dhaxayso yaynu nahay Khalid Fawdadi goobjoog Hargeysa